assalaamu calaykum dhammaan 195 dal ee qaaradaha ka kooban yihiin waxaa ku yaala goobo badan oo loo dalxiis tago kuwaasoo aad u qurxoon kuwa aragti ahaan aad u qurxoon balse ha moogaan in qaarkood ay halis ku yihiin naftaada halisna gelin karto jiritaanka noloshaada haddaba muuqaalkan kaga boga daawaday qaar ka mid ah goobaha dunida ugu halista badan oo ay tahay inaad iska ogaatid ka hor intaadan tegin goobahaasi ka hor muuqaalkaas ku soo noqod wanaagsan daawadayaal dhawaanadan uu isweynay balse ugu dambeyn waynu selnay mashquulo dhowra jiray aynu ku maqneen balse hadda kadib muuqaaladeen ayaynu dib u wadi doonaa insha allah wadada dhimashada wadada north yangas waxaa loo yaqaanaa wadada dhimashada waxaana loogu bixiyey sabab magacani sababo jiro awgeed inaad wadadan gaari ku wado waa halis dabcan sababtoo ah waxaad la kulmaysaa dhul go-aya daadad iyo dhagaxaan soo daadanay sanadii 1994 ilaa 300,000 oo darawalo ayaa sanad walba ku dhiman jiray halkani taas oo xaqiijinaysa naanaysta wadadan kuna daraysa liiska meelaha ugu halista badan dunida ee la booqdo jasiiradda masaska waxaa jirta jasiirad ilaa 25 mayl u jirta xeebta Brazil halkaasi oo dadka dalkaasi ku nool aysan ku dhiiran karin xitaa inay booqdaan goobtaasi waxaa jira warar dhowaan ka soo baxaya laysla dhexmaraya sheegayana in la helay meyd kalluumaysato doontiisa saaran dul sabeynaya badda calaamadaha korkiisa lagu arkayna waxa ay dadka intooda badan ku sheegeen inay yihiin kuwo u eg in mas uu qaniin dadyoga ku nool dalkani inta badan jasiiradaasi waa ay ka baqaan waxaana la sheegayay inay aad u halis badan tahay iyadoo dowladda Brazil ay dadka ka mamnuucday in ay booqdaan goobtaasi batatanba xireenka Turkmenistan Darfasa oo loo yaqaano albaabada naarta waa goob qani ku ah gaaska dabiiciga ah kuna dhex taala god dhulka hoostiisa ah khubarada cilmiga dhulka ayaa dab ku shiday si looga hortago faafitaanka gaaska methane waxayna holcaysay goobtan tan iyo sanadii 1971 oo ahayd markii koowaad ee meeshani lagu qabtay dabka waxay ku taalaa bartamaha lama deegaanka Karakum oo qiyaastii 250 kilomitir u jirta caasimadda Turkmenistan beerta nasashada Madidi waxay ku dhareersan tahay webiga Amazon ee dalka Bolivia waxayna ku fadhidaa dhul dhan 19,000 kilomitir isku weera beertani waa kaymo isku cufan waxaana ku yaala dhammaan noocyada dhirta iyadoo xayawaano badan ay hoos u tahay qaarkoodna ayba yihiin kuwa halisa kaymahan waa bahalo galeen iyadoo dalxiisayaasha lagula taliyo inaysan keligood aadin ilaa ilaale ay raacaan mooyaane waa mid ka mid ah meelaha sida aadka ah loo ilaaliyo sababo la xiriira duurjoogta ku nool shimbiraha iyo xayawaanada halista ugu jira inay dabar go'aan sanadaha soo socda jasiiradda waqooyiga Sentinel jasiiraddani waxay ku dhex taalaa jasiiradaha Andaman waana mid ka mid ah meelaha ugu khatarsan dunida dadka meeshaan degan ayaa ah dhibka ugu badan ee aan loo tegi karin ama meeshaan ay halista u tahay goobtani ciladeeda waxa ay ka taagan tahay ma ahan meesha halisteeda balse dadka ayaa halis ah macnaha waxaynu ula jeednaa dadka meeshaan degan ayaa ah dad asaska qaba aadmiga kale waxa ay diideen wax walba ay kugu darsami lahaayeen ama ay kula wadaagi lahaayeen nolosha caadiga ah dadweynaha kale qabaa'ilka halkan ku nool ma yaqaanaan dadka meelaha kale ka yimaaday haddii ay dalxiisayaashu soo galaan jasiiradoodana waxay u arkaan dad qalqal ah gelin kara noloshooda waxaana laga yaabaa inay cadow ku arkaan isla markaana ay sameeyaan gacaabin dhan walba leh sidaa darteed ayaa loogu soo daray liiska meelaha ugu halista badan ee dunida ee aan la booqan karin muuqaalkeeni maanta ayaa halkaa inooga eg intaan muuqaalka ku xiga aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum